السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذا وضع السلامة ومضى الصوماليات دمان ديالك استود جوكتان السوشيال ميديا كجرتا قارهان وحان سلامة يا مانتا دادك يقرر جبوتي ويفرين تنان يقرر جبوتان وسو جودينيو وحان جعلها إساك إنا وحينيغا افتيشو ياركا يرى إساق إيري الصومالي لينا قل لي كان انتان دنبا كون مشغول رير جبوتي لايف كوصو دارنا السوشيال ميديا كدحاية لايف كوصو شدنايا yaan jecelahay leeyahay ciise riyooleena wax inaga iftiinsho intaan barnaamijkiisa aan u gudagelina waxaan jecelahay videogan horta imika saad tagin qof kasto oo daawanaya oo reer Djibouti inuu like and share u bartaajiyo videogan la iswada gaarsiiyo dhamaan ummadda reer Djibouti waxa weeyaan horta qof ninka yar waa nin aad uqdada reer Djibouti ay ugu dhex weynaatay ay ugu dhex qaraxday ay ugu dhex balaaratay waxa uu ka soo bilaabay Djibouti ayga inuu qof kasta oo reer Djibouti oo live ku jira intuu live-kiisa galo comment-ka ku soo dhacaayo isagoo soo cadaanin oo toos u soo baxayn oo toos u soo rag u soo horfadhiisanayn ha ku soo caayo comment-ka waxaan ka arkay dhowr barnaamij baan ka arkay muxiidiin cilmi isagoo live-kiisa ku jira oo qoraal ku caytamaya ninka yar leeyahay nabadiid Umar isagana live-kiisa isagoo ku jira oo qoraal kaga dhax caytamayaan ka dhax arkay waxa kale oo ka dhex arkay ummadda reer Djibouti waxa la wixii live galay inuu dhex galo oo live-ka ku dhex aytamo qoraal ku dhex aytami jiray haddaba waxa la yiri geelow daaqo maalinta aad gamoor daaqdid baadaha yaa lagu yaabaa moogtahay live aan anigu ku jiro oon u fadhiyo buu ninka yar soo galay sidii si caadiga ahayd uu ka soo dhex aytamay qoraalkiisii horeeyay oo caytay markaan arkay live-ka aan ku jiray wuxuu ahaa live-kii cawaale aadan maalintii dhaweyto iyo barnaamijyada yar u dambeysay dadkan ku telekotanadu ka sheekeynayeen markuu ka soo dhacay tamay qoraalkiisii arkay hadda anigu soo qaatay ninkii waan soo qabtay saashadan soo saaray dadkuna marxaati baahan oo liidawnay waxaan ka yidhi wariyaa nin raga hadaa tahay halkan soo hor fadhiiso ila xifaaltan ila dood hana dhex marto foolka foola waxa doonaysan inay weydii waxba qoraal ku soo caytamay ninkii markaan shaashada soo saaray su'aalaan isweydaarsanay su'aalihiin isweydaarsanay man jeclay halkan inaan dib iniga wada xasuusiyo dhamaanba ummadda reer Djibouti amba Soomaali weyn wixii daawanayo dhan waxaan ka yiri walaalkayow barnaamijka martaba ay tahay kaama tuurayo bal waxa su'aal aad qabtida reer Djibouti qabtina halkan iga weydii anna waan ka dhargin waxa uu weydiiyay wuxuu iga yiri Xasan Bigeero Xasanow waxaad isleedahay buuri hadda reer Djibouti difaac baad isleedahay buuri waxaanad ku soo goobtay buuri reer Djibouti qolo yar oo qabiil iyaad ku soo koobtay buuri Djibouti ma ogtahay in ciise ka balaarantay bigeero su'aaluhu weydiiyay aniguna jawaabihi aan u celiyay baan doonaya in halkan inta niga iftiimiyo in Djibouti qolo ka balaarantay ma ogtahay bigeero su'aashaas weydiiyay Djibouti qolo ma ka balaarantay mise kama balaarno buuri waxaan ugu jawaabay tolkayow waxaan ka yiri walaalkayow ciise waan u hadlaa waa xaq laakiin ciisaha aan u hadlayo baan ka yiri maaha ciisaha reer Djibouti waayo ciisaha reer Djibouti waa ciiso calan iskale dawlad buu ku dhex jiraa nidaamkiisii buu iska haystaa ciisaha aan u hadlayaan ka yiri waa ciisaha dulman ee Itoobiya jooga iyo ciisaha Soomaaliland dhexdiisa aad ku dhex guumaysanaysiin inagoo isaaqa iyaan u hadlayaa baan ka yiri ciisaha Djibouti maaha ka yiri Djibouti markaan u hadlayna waa maanta oo kala shaarkii Djibouti waaniga sito cawaale aadan baan u hadlayaa ma dhamaata su'aashaas sidaas aan uga jawaabay waan gaarsiiyay waxaan ka yiri ninkaas su'aal ma ku weydiiyaa baan ka yiri ha i weydii wiiga su'aal waxaan ka yiri anoo xogtiisa haya ninkaas oo wax koog si fiican wax ugu yaa ka yiri waxa la sheegayaa baan ka yiri adigu inaad halkan lagu soo koriyay Djibouti maxay ahaydana oo oday reer Djibouti ku soo koriyay oo xaafad oday reer Djibouti ciise aad ku soo dhex kortay oo Djiboutiya ina passport halkan lagaaga sameeyay ina xaggan laga diray oo tacliinta halka aad ka dhiganaysid reer Djibouti oday Djiboutiya oo halkan ka bixiyo oo passport-ka ku dhooftana passport Djiboutiya ay tahay bal arrimaha wax iga iftiimaan ka wuxuu igu jawaabay ninkii anigu odaygana sheegay soortama maqal buuri laakiin Djibouti mar baan imidayo visa anu soo doontayo muddo yar baan joogayo fiisiina ilaahay waa iga siiyo waxaan kala kulmay kulayl iyo kooranta la'aan iyo maxay waxa weeyaan hadaba ninkaas waxaad garatiin kow نعاية أنك في جبوتيان
baasaboorka uu sito inuu yahay baasaboor Jabuuti waxa uu weydiiyay su'aal Jabuuti waxa la sheegay buu inay kuleyl tahay koronto la'aan ay hayso bal ka waran buu kuleylkii iyo kaneecadii iyo korontadii anigu waxba uma qarinayo waxna kala ma gabanayo waxaan ka yiri in adeer baa ka yiri horta kuleylka wad ogtiin baynagu baa dadkan waxa keenay Ilaahay baa keenay kaneecadana waa wax rabaaniyo wad isku ogtiin haddii kaneeca la eego burco wax ka kaneeca badan ma jiro kuleyl haddii la eegana berbera wax ka kulul ma jiro midda kale korontada ka yiri Jabuuti ku sheegaysa koronto la'aan iska daa korontada Jabuuti oo korontada Soomaaliland laga shito annaga oo reer Jabuuti ayaa inaga sadaqaysano halka inay dhignaan kan idho gargaari miisin marka rag korontadiini inaga Soomaali ahaan shidaya oo annagu koranka aad shidatiin annagu reer Jabuuti ahaan aan siinay si annagu bila koran u noqonayna nagu jawaab waxa weyn hadaba ninka su'aalo ka cadhooday baa jira waxaan ka yiri war su'aal ma ku weydiiyaa waan ka yiri ha ii weydiiyay waxaan ka yiri in adeer Somaliland iib nationalka Somaliland amba heesta astaanta calanka Somaliland la yaqaan loo tumo ii sheeg baan ka yiri anu su'aalo waxa ma aytimin ninka yar lama aytimin laakiin su'aalo waxaan weydiiyay macquula oo annaguna waxaan ka biirsan karno caalamkuna waxay ka biirsan karaan waxaan ka yiri Jabuuti iyo wadan kasta oo calan leh wuxuu leeyahay iib national buleeyay iibna astaan calan buleeyay loo tumo oo lisku soo joogso lisku taago astaantiina calanka ii sheeg baan ka yiri xageesa laga saaraa oo astaanta calanka laga tumo ii sheeg baan ka yiri ninkii yaraa u shubiyaha la dhacay wuxuu yiri astaanta calanka waan kuu sheegay bal saraka oo u soo joogso oo inaad xustid baa mudano waxaan ka yiri iska daa usha adbiyaha la dhacay su'aasha aan ku weydiiyay jawaab hees buu ii soo sheegay qaaciya oo Xasan Aadan Samatar ku qaado buu ii soo sheegay wuu iga yiri samakuwar baa la yiraahdaa in maxay heedeena waxaan ka yiri haddaba waan uga harayba nin been sheegay laba daba socday waxaan ka yiri hay habasa ku ahaa teeska qaaciga Xasan Aadana haba ku ahaatay laakiin waxaan ka yiri xagee laga saaraa waan ka yiri wuxuu yiri Jabuuti waa laga saaray waa ka Ismaaciil Umar ku ciyaariyay ku boodbooday markuu Mujaahid Muuse Bixiimid warba waxaad aragteen iska daay astaan Somaliland leedahay oo Jabuuti loo saaraad aragtay iska daay markuu Ismaaciil Umar iyo Muuse Bixi kulmeen waad garanaysiin calanka xagga dambe ka yaalay calankii Jabuuti calankii oo qorayno ahaa oo calankii Somaliland la surin astaan miisigo loo qaaday iska daa waayo waa dawlad la aqoonsan yahay ma caayino anaga aflagaadana naga maaha dawlad la aqoonsan yahay maaha markaan soo qaabilno reer baan ku qaabilay anagu tollimaan ku qaabilay gacalnimaan ku qaabilay jaar baan ku qaabilay jiiraannimaan ku qaabilay yaa isku dhiig iyo isku dub baan ku qaabilay laakiin anagu kuma qaabilin dawlad ahaan waayo lama aqoonsanaba annagoo taas ku qaabilay yaa calankii Jabuuti oo qolaana ka dambeeyay sawirkaana waa inii soo dhigi doona madaxweynaheena sharafta leh marka ninka yar wuxuu ku dhagan yahay madaxweynaha wadanka jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geelle son excellence oo hawsh aad arkaysiin oo madaxweyne karaamaysan inuu yahay waxaan weydiiyay inii gudagale su'aalaha inii gudagale waxaan kale oo ka yiri waa yahay baan ka yiri in aad haba ahaato iyada halka ay dhig Jabuuti waa laga saaraa bay tiriye ku tiri ku taanida iga daayo runta ka kaftanaa ka yiri waxaad ii sheegtaa baan ka yiri Soomaaliya waxaad sheegtiin inaad ku biirteen baan ka yiri inkastoo anigu aaminsanay Somaliland oo Soomaaliya aaminsanay Soomaaliya inaad ku biirteen iniga Somaliland oo isku tag aad haydeen alliance isku biireen aad haydeen baad sheegaysiin oo caalamkan inaad ka dhaadhicisiin doonaysiin baan ka yiri habas noqotiinay war calankii aad sidateen maalintaad Soomaaliya aad ku biireyseen calanku waxa baan ka weydiiyay wuxuu iga yiri oo igu jawaabay Soomaaliya markaan ku biiray waxaan inaan adiga ku xoreeyaan ugu biiray inaan adiga oo iyaga israacan waa barbadha badan iska jooji baan ka yiri in adeer nin weyn baa tahay si sharaf leh aan u doodno miyana dad badan oo hore miya dood foodka fool wili rag la hor fadhiisan baan ka yiri oo rag dood isku qaban waa sidii su'aasha toos baan u baabaaraya jawaabta adiguna toos u abaar wuxuu yiri calankan buluuga ee dhaxda shaambada kule xidigta kule iyaan sidnigu markaasaan ka yiri sax waad sidateen daniyo baan ka yiri calanka maxaad ula soo noqon weynaa in dawlad koox ku biirtay astaantii lagu yaqaanay hadii labadii kooxood ay isdiidaan iska daa dawlado
koox yar iyo koox isku birtay astaan ay siteen haddii ay isdiidaan labadii kooxood koox kastaba waxay sidatay astaantii meeshan ay la timiday wax oogii way la kala noqonayaan maawiyadii waa la kala guranayaa waan keenay inagu maxaad calankiini buluuga ahaa ula soo qaadan weydeen ugula soo noqon weydeen waan keenay ma cabsi bay iniga soo riyatay ma xoog baan iniga qaatay ya ma karti baad u weydeen aad ku soo qaadatiin mise waxaad sheegaysiin baa beenaba dee calan bamaad sidan waxaan beecba ka jirin wuxuu yiri waxaan uga imid buu yiri dulqaad iyo samir iyo maxay baan uga waxaan meesha ku jilay kan buu jawaabay haddaba ninkii halkaas sheekadii markay socoto intaas su'aalaha iyo su'aalo ka badan ay dambeeyaan oo ay ahayn aflagaada ku jirin u baxsaday ninkii live-ka ka dhacday degdeg buu isku tuuray dadka waxaan u ballan qaaday markuu soo fuulayay ninkaa yar waxaan ka yidhi gacanteeda waa kuwaada shicibkaan u sheegay ma dejinayaan ka yidhi ha ila xifaaltamo ha ila dootamo inuu dariiqa suuqa ka soo caayin sida raggana waxaan isku idaarsano tolkayow waad i maqlaysin anu intaa wax dheeriyo kuma darayo ninkii yaraa live-kii degdeg buu iskaga dejiyey u baxsaday war ciise maxaa ku helay war xaggeed martay war soo fuul shaashadda kolkaas annagu reer jabuuti haddaan nahay waxaa la idhahaa af soomaaliga reer jabuuti ma yaqaanaan war af soomaaligu jabuuti buu ka beermaa aniga nila hadlay reer jabuuti baan ahay ninka yarna aad baad u wada taqaanaan codkiisu waa daciif wax imika waxaa la moodaa dhakhtarada lagu daweeyo maaragta xanuunada TB-ga lagu daweeyo inuu ka soo baxay baa la moodaa inaga arkeen bal hadda eego ninka caynkaas bal hadda eego waxaasuu sheekadiisu warkiisu waxaas moogtay cod nin ragii horta rag la soo hor fadhiistana male saad u wada aragteenba ha baxsadee haddii uu de nin ragii mid weligeed ba laba rag markays qabtaan de nin laga adkaan jiray haddii uu sidii ku socdo uu de sidii ammaan nagu siiyo reer jabuuti ahaan sharaf baheed karaamad bay ahayd maamuus iyo ixtiraam baa ku jiray intuu socday buu isla kolkii anoo live-kaygii ku jiro live-kii ka bixin waxaa la yidhi miskiin cadhooday madaxaa barara oo madaxaa daalaa la yidhi intuu caymaday buu live ka daartay halkii boggiisii amba bayshkiisii buu live ka daartay uu soo fadhiistay jabuuti kuleylkiiyo koronto la'aantii may ka baxday jabuuti waa barnaamijyo loo dhoweyn loo jeedin kolkaas dadka reer jabuuti waa dad aad taqaaniin oo dhiig iyo uusle kolkiiba waa loo galo war maxaad nagu caaysaa baa la odhan tilayidhi waxaa loo wada dirtay invitation muxuu sameeyey dumarkiibuu ka soo dhex naqaynayay mustafa soo diray qureyshaa soo dirtay raxmaa soo dirtay raxmuu soo qabanayaa maxaa doona raxmaay waa naag wuxuu la sheekaysanayo run baan anigu inii sheegaya uu diiday nin raga inuu soo qabto qoraalkaa loogu qoro war xasan taraabee soo qabo waan soo galay waan kaga soo dabagalay weliba anu waan soo dirtay invitation war soo qabaan keen waxaa la yidhi war haddaan nin raga tahay dumarka aad la caytamaysa iska daayo xasan taraabee soo qaba la yidhi walaaxaaga wallaahi xaaraan iimana soo qaban waana inii soo sawiri oo imikaad boggaygaad ka arki doontiin beeshkayga sawirkii anigoo kale isoo qabo qoraalkaygii oo qofkii igu xigayna kaliya war haddaan nin tahay xasan taraabee soo qabo inaan soo bibiliyeyn doonaa waad arki doontiin kolkaa ninka yar wuxuu u baahan yahay biksiyatriyi in la geeyo cilaash bay afka halkaa u yaqaanaan nimankan aan la hadlayo in la geeyo u baahan yahay maskaxdiisa in wax laga soo dabiibiyo u baahan yahay kolkaa reer jabuutiyow inaad isku daalisiin maaha inaad reer jabuutiyow isku daalisiin ma aha ninkan yar kolkaa in lala sheekaysan jawaabteeduna aniga uma qalanto isku karaamadna ma nihin waxaan inii sheegaya walaalahayow ninkaas ini soo caayaya waa kaa warkiisu waa nin maskiin cadhooday madaxaa daalaa waa nin cadho reer jabuuti uu ka qaaday halkaa kala soo jeestay ha iska duryamaynaade ha iska dulmariyo eligeed baa la arki jiray nin kabaha la dulmaray haddaan kabaha la dulmaray hadduu iska caytamo waxba loo arkaba maaha cid allee cidu dacay wax kaga qaadi ma jirto ninka ragii waa nin rag la dooda waan idin wada salaamaya dhammaanba shacabka reer jabuuti meel kastood caalamka ka joogtiin waan idin jecelahay soomaali weyn sidoo kale waan idin jecelahay beesha ciise ee city dagaalka kaga jirtana waan aad baan inii soo hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay ilmaadeerayaal guusha halkaa ka wada waana in wada salaamaya videogan like and share waa anigoo ah xasan taraabes hala baartaajiyo waana mahadsantihiin